madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa wajigabax aad u xoogan kala kulmay kumanaan arday oo wax ka barata jaamacadda magaalada Jigjiga. dhalinyarada wax ka barata jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa dagaal wuxuu kala dhaxeeyay isbuucyada ugu dambeeyay ardayda ka timid dalka Itoobiya qoomiyadiisa kale. madaxweynaha oo socdaal ku tagay jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa kumanaan arday weydiiyay waxaad lahaydeen annaga iyo Itoobiyaanka kale ee idinku miyaydaan ahayn Itoobiyaan balse kumanaan arday ayaa aad ugu qayliyay manihin Itoobiyaan waxaanu nahay Soomaali jinsiganaguna waa Soomaali. madaxweynaha oo aad u yaaban ayaa weydiiyay haddii aad Soomaali tihiin dalkan aad ku nooshiin soo Itoobiya maaha. kumanaankii ardayda ahaa oo aad u xanaaqsan ayaa waxay ugu jawaabeen madaxweynaha annagu manihin Itoobiyaan Itoobiyana xoog bay nagu haysataa. bal haddaba aynu dhagaysanno kumanaanka ardayda iyo waxay kaga falceliyeen. لكن سؤال هذا هذا يمكن واحد هيدا أما إثيوبيا يلوكم يعني تقدر تيجي Somali Somali يكون تكاتين كم تواجه daba su'aasha muhiimka ee meesha taalla ayaa waxay tahay sax ma tahay dhalinyaradan ee ardayda ee soo korayso jawaabta ay ka bixiyeen jinsiyadooda iyo inay yihiin dad Soomaaliya oo aan ahayn Itoobiyaan Itoobiyana ay ku qasbayso inay noqdaan Itoobiyaan iyagoo aan ku qanacsanayn. su'aasha uu madaxweynaha weydiiyay jawaabta uu ka helay maxay isaga shakhsi ahaan ku soo kordhin kartaa maxay isa ku yeelan kartaa saamayn waayo waxaa laga yaabaa inay gaadho madaxda ugu sarreysa dalkan Itoobiya iyagoo faalla gaara ka bixiyo